محمد حسن محمد وأهويل النيرة 18 سنة جرأة دمر كان اللوجة جرو أي إذا ماذا سوماليا قيبت إلى لذا كرونكا ديار ضحى مجال الجوهر مدة طوام مع الموضوع وحرنا جردلنا يوجستين سيد جركي سكم وقتها كدي مركي أي تهمين أما بأي كشكيين سيد أي شرح هو رقية هو هذا الشيء محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا وحد إقداون ساندر مديت ميدي جروب مجاعي وإسحاق إبراهيم فضلنا دي أتكو عصوبتها channelك وحانك عصاننا إن عاد نقصو بيرتو سبسكرايبر نقاطه مقالة كسو قال دونان لو ذاك أصحابتك لا إن سيدا مجاعي كم وقته channelك وchannel كسو هرجيد ظلمي يتعدي يحد جودي كله جستو قف كستو بنادنا الدنيا الدشيد كلهم خاصة ضدك الصوماليات إن مركب وانجعلها يدي أتاي قفنا عبد المجا إن عاد نقصو بيرتو أو عاد فكر كادي أركتي هذا لو ذاكتو وما سنتين مرة هذه مرصد حاد إن وحروا إن ندي سوق بيوم مقال رنتي أنا أفيعنا إن لها إسلام كان قف كستو أنا حريص الضمير له وصن أدل خادن كرين مقال كسو حكوسة بسني هاي ويل سديد 8 سنة جرأة ما يعي سنة ليرادو محمد حسن محمد كنول إن مجال الجوهر قبل كشبالها دحى إسلام كان قف caafimaadkiisa xagga maskaxda uusan fiicneen dhimirkana loogu jiro ayaa waxa loo geystay xadgudub ama taadi oo xagga jismiga ah oo si xun loo jirdilay isla markaana hadii aad fiirisid dhaawacyada ka muuqato jirkiisa runtii aadan maleysan karin wax kale ma aha sababta loo heystay ama sidaas loo yeelay waxay ahayd in lagu eedeeyay ama lagu tuhmay inuu yahay qof ka tirsan xarakada al-shabaab لكن وحا هوال أو بقولكي وبقول عد سيد الشيء سهويديس ويلكس إنه ويل إسك حنوصن إسلام كنا إن مسكح دي سأيسن تام إهين لكن وحنك حما هاي عدة أرتس جيستي أما فلك السميسي إن أيتهاي إن عيدن كحوج دلك الصوماليات خالصة كو كترسن مامولك هيرشبيلة كوسو المجال الجوهر ويل كانوا حيستين مدة طوال معلومات سيد الشيء تهويدا إن إنتاسنا way jirdilayeen oo waxay ka muuqataa jirkiisa waxa lagu heystayna ay tahay tuhunkaas wiilka mar hadduu uu xanuunsan yahay oo yani dhimirkiisa ama caafimaadkiisa xagga maskaxda uusan taam ahayn runtii waxaa laga yaabaa mararka qaar hadallo isdhaafo ama waxyaabo aanan maskaxda galaynin inuu ku hadlo isla markaana faralkii oo lagu jirdilayay ama lagu ciqaabayay marnaba aan laga joojin laakiin sida saxda ah waxa waaye in ciidanka Soomaalida ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nooc rabana aadano qof markay tuhmayaan waxa jiro process loo maro oo lagu hubiyo qofkan yani waxa lagu tuhmayo inuu yahay in kale laakiin hadii la yiraahdo qofkan waa la dilayaa ilaa wuxuu yahay oo ka sheegto waxa huwa qof dambi lahayn inuu dhahayo dambi la ay ama waxa ugu tuhmaysan waa ay marka waxaan aad ugu xumahay wiilkaas maskaxdiisa lagu jiro ana caafimaadkiisa taam ahayn runtii ina sidaas lala dhaqmo hooy ruqiya oo ah wiilka dhashay maxamed xasan oo ah wiilka xanuunsan runtii sida ay u hadlayso hadii aad fiirsatid ma malayn kartid iyo yani murugada ka muuqato way fiicnaan lahayd maamulka Hirshabeelle arintaas in ay wax ka qabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu yaraan marka hore in ay ka bilaabaan caafimaadka wiilkaas in ay gacan ay ku siiyaan maamadaas sida hadda ay sheeganayso xitaa uma awoodo in ay daaweysato wiilkeeda waxa lagu dilayna waa gardaro cidda dishayna waa cidii ay isdhahayeen amaankiina iyo magangelidiina ay sugayaan marka waa nasiib daro oo adduunyadii ayaa waxay noqotay cid la aamino iyo meel loo cararay in la waayo haddii ay dawladii ay ku dilayso isla markaa in aadan haysanin wax ku daaweysid wiilkaagii ama cunto uga dhigtid ama wixii la mid ah عدي إنتاس خبر لهدنا تاي عدة أديك أكو أن كل باتين سو رنتي دب كذا أي لا هاي مركا هو يروقيو دب كان سو جاري ويل كذا رنتي أدي أيان أو حماي أن فضلا معمول كهيرشبيلة أرنتاس هلا جارسيو سيد ويل كاس وح أو خبر لهاين عدة فالكاس كو جيستين عدالة للصهر كين لها يعني عذر دار أما excuse من قنايو إن يرادو وتهميني iyo wuxuu ka tirsanaa dadkaas insaan oo ahaa wax waliba waxa jiro sida si loo hubiyo iyo nidaam loo maro marka wiilkaas la jirdilay oo runtii nafsiyan iyo asigoo marka hore xanuunsanaa oo dhibkan loo sii geystay runtii aadan ugu xumaay
hooyo ruqiyo iyadana waxaan leeyahay ilaahay sabarka ka siiyo wiilkaaga maxaa yeelay isagoo xanuunsanaa oo hadan dhibkan loogu sii daray sida iyadaba ay sheegayso wallahi waa arrin aada u murug badan marka aada iyo aad ayaan uga xumahay wixii dhacay ka dulmidiid team ahaan runtii waan cambaareynayna falkaas qaabka daran oo lagu lakacay maxamed xasan maxamed waan jeclaan lahayn in maamulka hirshabeelle iyo dhammaan dowladda federaalka soomaaliya arrintan ay wax ka qabato aysan fududaysanin isla markaana dad badan oo waxaa jira la mid ah maxamed xasan maxamed oo ayagana falalka noocaas ah lagu hayo fadlan ka digtoonaada waxyaabaha aada la kaceysaan bulshada waa maasantiin waxaad nagala socotaan dulmidiid media group fadlan haddii aad necab tahay dulmiga waxaan kugu soo dhaweynaynaa channelka dulmidiid media group waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidamadu waa ay tuhmaan qayb ka mida bulshada waxayna ku tuhmaan siyaabo kala duwan balse ma jirto wax baaritaana ah oo ay mariyaan inta ay tuhmaan waxaana mararka qaar shacabku ay kula kacaan falal dhaawici kara xuquuqda aadanaha oo waxaa qofka la tuhmay lala dhacaa jardil kaa oo sababi kara in dhibanaha ugu dambeyn uu u geeriyoodo ama uu ku waayo xubno muhiim u ah jirkiisa dhacdadan ayaa ka dhacday duleedka magaalada Jowhar si gaara garoonka diyaaradaha ee magaalada oo ay ciidamo ka mid ah kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin fariisimo ama bar control maxamed xasan maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah 18 sano jir ah dhimirkana looga jiro ayay ciidamada Soomaaliya qaybta ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar muddo 10 maalmood oo xirnaa jardilna ay u geysteen sida jirkiisu ka muuqata kadib markii ay tuhmeen ama ay ka shakiyeen sida ay sharxayso hooyo ruqiyo oo ah hooyada dhashay maxamed ruqiyo maxamed cumar wiilkayga maxamed xasan maxamed sanadkiisa waa 18 oo dhimirka uu leeyahay oo mar la waanay marna la helay dhibaatada hadda ugu dambeysay oo dhacday alboorkayga ay macnaha ka soo qabsatay subax lagu socod iga soo tagay afar habeen oo naga maqnaa raadineen axadii oo iga soo tagay maanta khamiista heedaan warbixintiisa helay in alboorka oo lagu hayo asagoo dhibaataysan oo tacbaan ah alboorkii aabihiis ka soo watay in alboorka joog waxaan uu soo wargeliyay ciidamada meesha joogto aan nabarkayga soo waceen wiilku waxa mar waa lagu soo meeraa marna waa fiican nabarkayga weydiiyeen markoo asaga oo baleeraad oo naqday ay arkeen nambar ay weydiiyeen nabarkayga ay soo siiyeen habeenkii nabarkay iga soo waceen subaxdii aabihiisa meesha ka doonay asaga oo caadi aan ahayn dhibka loo geystay hadda waa u jeedin waa lagu istaagay gacmaha saasaa loogu biciyaa laga gubay gacmaha waxna kuma qabsan karo waxna kuma cabi karo ina afka wax u gulgiliyo mooyee mid kushaas ma tagi karo dawladis kama tagi karo ana xaar ku soo dhaqaayo ana afka wax u gulgilinayo mar asagoo awalba iska xanuunsanaa oo guriga ku ceecinaa marna iga fikanaa marna haysanay oo dhibaata aan ku qabay hadan dhibaata sii weyn ayaa ii soo hooyo ruqiyo waxay ii sheegtay inaysan jirin cid ka warqabta dhibaatada wiilkeeda ku dhacay waxayna tilmaamtay inay tagtay goobo kala duwan si ay u hesho cid u micintay wiilkeeda isla markaana ku daaweyso isbitaalka gobolka oo uu si daawo ah ugu jiro dhanka kale waxay tilmaamtay in daawooyinka wiilkeeda u soo baxay ay ka doonto goobaha caafimaadka sida gaarka loo leeyahay taasina ay tahay culayska ugu badan ee halkani ku haysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo jooga alboorka aniga xiriirkooda aniga ma aqaan aniga saldhigan tagay asagoo dhaawacaas ahaan saldhiga geeyay mootan ku qaaday saldhigan soo tusay ciidamada saataan ii soo galeen ogaadaan dhahay taliyihii meesha joogay oo saldhiga joogay wuxuu yiri aniga dadkaas wax kama qaban karno waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed inay garab siiyaan hooyo dhibaataysan oo cunugeeda dhib loo geystay ayaan ahay inay gacan siiyaan cunugeyga iga daryeelaan ee ii daaweeyaan aan ku codsanayaa maxamed waan isku day inaan weydiiyo xaaladiisa ayaa awoodi waayay inuu ka warbixiyo dhibka ku dhacay qudhiisa xanuuno maskaxda ah iyo kuwa jirka uu isbiirsaday awgood dhacdooyinka ceenkaani ayaa ah kuwa iska dhaca si gaar ah agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ama goobo ka baxsan gudaha magaalada mana jirto cid jawaabo cadcad ka bixisa dhibaatooyinka lagula kaco shacabka waxaana xusid mudan in magaalada Jowhar ay ka dhacaan seminaaro iyo tababaro doodo looga hadlayo tacadiyo loo geysto carruurta iyo ku xadgudubka xuquuqul insaanka cabdi axmed macluur warbaahinta SBC magaalada Jowhar.